السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halka kani waa Towsiiyo Channel. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe, haddii aad noola joogtayna share iyo like. Maantana waxaan sheekadeena ku soo qaadan doonaa buraashkii sixirka. Macallin ardaydiisa baro farshaxanka iyo musawirada ayaa waxa uu la kulmay markii ardaydii ay wada baxeen. Arday kaligiis wax sawirayo waxa uu yiraahday maxaa ardayda ka reebay waxaa sawiraysidna waa maxay oo aad qabanaysid. Wiilkiina waxa uu yiraahday macallin cashiradii ayaan ku celcelinayay musawiradii waxaan doonayaa anigu si wanaagsan inaan u barto sida wax loo sawiro. Macallinkii ayaa yiraahday waxaan ku siinayaa hal dardaaran oo ah marka aad wax sawiraysid waxa loo baahan yahay shaygaas in uu ekaado shay jiro oo original camal ah. Wiilkii aad iyo aad ayuu fakeray waxa uu yiraahday maxaad sawirtaa waxa uu yiraahday alla ilaahay faraska ayaa ku fudud faras musawir. Waxa uuna bilaabay in uu sawiro musawirkii faraskii markii uu dhameeyay waa uu la qurux badnaan waayay. Kadib haddana wuxuu isku dayay malaay badda ku jiro asagana waa uu la qurux badnaan waayay. Asaga oo niyad jabsan ayuu soo baxay waxa uu soo aaday bannaankii waxa uu arkay laba shimbirood oo aad iyo aad u qurux badan saaran geed ka hor yaallo iskoolka. Kadib waxa uu ku fakeray labadii shimbirood in uu sawiro geedka saarnaa. Markii uu shimbirihii sawiray oo dhameeyay oo asaga wala ku faraxsan yahay ayaa waxaa la kulmay macallinkii. Macallinka ayaa yiraahday wow sawir aad iyo aad u qurux badan ayaa sawirtay meeqa rinji ayaa ka sawirtay. Wiilkiina wuxuu yiraahday rinjiyadan ayaa ka sawiray. Waxaad mutaysatay ayuu yiraahday hadiyad qaali ah oo horta qofna aan siinin. Hadiyadani waa tana waa buraash sixir ah laakiin wuxuu kaa doonayaa in aad ilaalisid waxaan ku sheegay haddii aad samaysidna wuu kula joogi doonaa. Horta ha ku sawirin shay noola ah laakiin markaa baahatid raashinka miraha waxyaabahaas ku sawir wax weyn aadan qaadi karin oo buugaan oo aad ku sawiraysid uusan hadhowda qaadi karin haddii aad ku sawirtidna asagana waad weyn doontaa adigana waa damac badan tahay ee damacaaga celi. Wiilkii oo faraxsan ayaa waxa uu soo aaday gurigiisii. Intii uu guriga u sii socday ayuu waxa uu la kulmay nin oday ah oo waayeel ah. Kii odayga yiraahday wiilkaygii waan baahanahay 2 maalin wax ma aanan cunin ee caawi. Wiilkii oo dhahay wax ma heli karo ayaa buraashkii arkay waxa uu yiraahday wow buraashkii odaygan waxa cunaha oo sawirabo waa tii uu dhahay macallinka markaa baahatay wax sawiro maxaa sawirtaa tufaaxii markii uu sawiray ayuu waxa uu keenay odaygii aad iyo aad ay u faraxsan tahay. Wiilkaygii waa mahadsan tahay ayuu yiraahday. Wiilkiina waa uu sii baxay inta uu sii socday ayuu waxa uu arkay maamo weyn oo waayeel ah. Wuxuu yiraahday waa inaan caawiyaa wax ay ku cugsato marka ay soconayso. Kadibna waxa uu sawiray 2 ulood oo taako ah ay ku socoto. Markii uu aad iyo aad ay u faraxday wayna u mahad celisay waa uu sii socday. Intii uu sii socday ayuu waxa uu la kulmay gabadh yar oo geed ka saaran yahay si ay kala soo degtana ka sila aygana uu soo degi la'yahay. Caawi ayay tiraahday kadibna waxa uu ku fikiray sida uu ku caawin lahaa. Buraashkiisii ayuu qaatay waxa uuna sawiray jaranjaro kadibna jaranjaradii ayuu fuulay aygiina waa uu soo dejiyay gabadhii ayuuna ku wareejiyay. aad iyo aad ayuu faraxday wayna u mahad celisay. Kadib waxa uu sii aaday gurigii uu deganaa. Inta uu gurigii u sii socday ayuu jidka waxa uu ku arkay guri aad iyo aad u qurux badan. Gurigaasoo ah xaafadooda guriga ugu quruxda badan. Waxa uu yiraahday kan oo kale waa inaan sawiraa mid ka sii qurux badan. Asaga oo ilaaway dardaarankii macallinka ee ahaa damac badan jooji. Waxa uu sawiray guri aad iyo aad u weyn oo u qurux badan ayuu sawiray. Gurigiina markii uu sawiray hal mar ayaa waxa uu waayay qalinkii iyo buuggiiba.
Waxa uu soo xasuustay dardaarankii macallinkii oo ahaa ku sawirin wax adiga aadan qaadi karin. Aad iyo aad ayuu u naxay. Wuxuu yidhaahday aniga macallinkayga dardaaran ayuu i siiyey. Dardaarankii macallinkaygana aniga ayaa ag maray. Qalinkii hal maalin aanu hayn ayaaban khasaariyey. Maxaan macallinku u sheegi doonaa? Gurigii quruxda badnaa ee aan soo arkay ayaa i dhaafiyey. Macallinkana wuxuu yidhaahday damaca badan iska jooji. Wiilkii aad iyo aad ayuu qaraacsanaa, asagoo murugaysan oo dhahayo oona ogaaday in uu damaca badani oo wax la'aan dadka dhigo. Oo dhahayo maxaa damaca badan ii daba dhigay? Maan qalinkayga si tartiib ah u haysto khasaaradan